Okay, let's go. weli miyaad isweydiisay sida Internet of Thinking-ku uu u fududeeyay supply chain management-ka tusaale ahaan qaaradda America amba Europe amba China Asia in alaab laga keeno oo lagu keeno alaabtii Africa iyadoo alaabtii aanu soo gaarin damage shirkadaha waaweyn sida DP World iyo shirkadaha kale ee adduunka bixiya warehousing-ku waxay isticmaalaan wax la yiraahdo supply chain management-kooga maadaama iyagu alaabtii mas'uul ka yihiin si aan damage-ka alaabtii looga ilaaliyo waxay la isticmaalaan wax la yiraahdo Internet of Thinking-ku waa qalab devices ah oo sensor ah oo ilaaliya alaabta amba hawsha loo diray marka inta badan ama waxay sameeyaan tracking amba waxay sameeyaan sensor Internet of Thinking devices-ka ugu badan ee inagu naqaano Soomaaliya waxa kamid ah kaamirada oo iyadu inoo sameeysan maxay tracking haddaba Internet of Thinking-ku wuxuu uu game changer u yahay oo u bedelay adduunkii supply chain management haddaba aynu ku bilowna basic-ga wuxuu yahay Internet of Thinking-ku ama IoT-gu waxa weeyaan shabakad devices ah amba waa qalabkaas wuxuu noqon karaa sensor wuxuu noqon karaa GPS tracker wuxuu noqon karaa wax la yiraahdo smart thermostats waxay sameeyaan communication qalabkani oo waxay fududeeyaan wada xiriirka waxaanay share gareeyaan data real time-ka يعني waqtiga la joogo ay qofkii device-ka isticmaalay data la share gareynaya haddaba marka la joogo supply chain management-ka Internet of Thinking devices-ku waxay ciyaaraan role aad u weyn in la track-gareeyo shipment-ka tusaale ahaan alaabta la dirayo tusaale ahaan oo kale DP World oo kale hadii ay waxay sameeysaa shipment-koodii waxay track-gareyn karaan oo ay ogaan karaan halku marayo waxay sameeyaan monitoring inventory alaabtii dhaqdhaqaaqii la soconayaan sidoo kale qalabka Internet of Thinking-ku wuxuu ka caawin karaa in ay saadaaliyaan delays-ka ku dhici kara alaabtu xilligii la rabay in ay ku timaado haddaba waxaad sawirataa baabuur weyn oo xamuul ah oo qaaday khudrad fresh ah oo raba in uu geeyo suuqa hoose baabuurkaas waxa ku xiran Internet of Thinking device sameynaya sensorkaas wuxuu monitor gareynayaa baabuurka halkuu joogo gaarigii alaabta halkan ka qaaday ee geynayay suuqa hoose halka uu marayo ay la soconaysaa sensorkaasi amba Internet of Thinking device-kaasi shaqada labaad oo inoo qabanaya waxa weeyaan inuu ogaado temperature-ka alaabta uu dhex yaalo ee la dhex dhigay system-kaas ama device-ka yari wuxuu ogaanayaa temperature-kooga ay kulbi ku jiraan tusaale ahaan oo kale hadii ay ahayd waxyaabo chemical oo la xiriira chemistry-ga oo isticmaalaan farmasiyada oo liquid ah oo hadii ay temperature-da qaar gaaraan xumaanaya marka temperature kii ayuu check gareynaya shaqada saddexaad uu device-kaas la dhex dhigay alaabta baabuurka saaran qaban kara waxa weeyaan inuu isaguna traffic condition-kii uu assess gareeyo oo uu eego in uu jiro jam wadada ugu fudud ee lagu geyn karo alaabtaas uu assess gareeyo hadii haddaba temperature-ku uu kor u kaco oo uu gaaro xaalado ay alaabtii damage garoobayso waxa fariin loo dirayaa qofka driver-ka ah ee baabuurka wada iyo sidoo kale control team-ka hadii ay markaa iyagu fariintan ay helaan waxay isku day doonaan inay xaliyaan mashaakilka intaanay alaabtii aanay xumaanin so wax cajiib maaha I think it's cool waxa jira saddex faa'iido oo waaweyn oo Internet of Thinking-ku uu u leeyahay supply chain management-ka ka ugu horeeya waxa weeyaan better control buu siiyaa alaabtii waxa laga ilaalinayaa damage-ka waxa laga ilaalinayaa alaabtii inuu damage soo gaaro tusaale ahaan oo kale temperature-kooga iyo xaaladooda ee la soconaya ka labaad waxa weeyaan tracking alaabtii route-ka ugu dhow in ay marto
iyo wadooyinka xiran iyo ruudadka xiran in la ogaado oo ka ugu fudud la isticmaalo ayay iyadana u siinaya lambar 3 wuxuu siinaya evidence oo alaabtii iyadoo xaaladii state-kii la rabay ku jirta xilligii la rabay oon wax delay dhicin ay alaabtii ay ku soo gaaraysaa qofkii customer-ka ahaa saddexdaas faa'iido ugu waaweyn ee Internet of Thinking devices-ka uu uga caawiyo supply chain management saddexdan tool ee soo sheegnay waxay ka caawiyaan business-ka in ayagu lacag badan sameeyaan in aanay gelin wax damage ah oo aan loo qabsanin alaabtii magdhow sidoo kale customer-ku inuu markastaba uu ahaado happy supply chain management-ka inta badan waxay isticmaalaan shirkadaha waaweyn ee logistics iyo procurement ka sameeya adduunka oo dhan inaga for example tusaale waxaynu soo qaadan karnaa shirkadda DB World oo sameysa warehouse iyo shipping iyo waxyaalo kale oo badan service badanna Somaliland intii joogtay ka qabatay and that's just scratching on the surface. So supply chain management-ka waxa fududeeyay Internet of Thinking-ka oo wuxuu ka dhigay mid aad u fudud haddii aad doonayso in aad ogaato waxyaabo badan oo la xiriira supply chain management-ka adduunka sidoo uu dhaco sidoo Internet of Thinking devices-ku ay u fududeeyeen supply chain management-ka iyo features kale oo aan Internet of Thinking ahayn oo laakiin iyaguna fududeeya supply chain management-ka ku xidhno page-kayga waxaan soo diyaarin doonaa barnaamijyo badan oo la xiriira sida supply chain management-ka oo u fududeeyaan devices-ka ay kamid Internet of Thinking-ka iyo qaar kale oo badan oo aan iminka halkan ku sheegay wad mahadsantahay sida noola joogto subscribe garee channel-kayga oo nala joog aad baad mahadsantahay thank you so much. Thanks for watching. I will see you next time.